السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا نمونا أكسن كسر على عشر سنين مادة باثولوجيا عشر كي أفراد. عشر كلمات وحين نقول دونا inflammation أو عابق خاص وكل عدونا شركة خاصة نوجيدا. وحنا جينا يا عشر كني إنه حفظنا كعابين دونا أي كوسابسن مادة باثولوجيا. marka hore daawadayaal waxaan idinka raali gelinayaa maadaama aad muuqaalkan inaga sugeyseen in muddo ah mashquul jira awgiis baynu idinka maqnayn waxaan idinkaga mahadcelinayaa dulqaadkiina iyo inta aad inoo sabarteenba hadda aynu gudagalno marka muuqaalka inflammation caabuq waxa uu noqon karaa falgalkaasoo la xiriira xididada nudayaasha jirkeena kaasoo ka yimaada inta badan dhaawac gudaha ka jira waa marxalad isdaba joogta marxaladaas oo la xiriirta xididada iyo unugyada jirkeena ujeedka inta badan falgalkaasi uu jirka u qabtana waxa weeye in laga difaaca jirka waxyaabaha dhaawici kara noocyada uu leeyahay inflammationka haddaynu ka hadalno waxa ay noqon doonaan laba qaybood qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa acute inflammation waa caabuq si dhaqsi leh ku bilowdo kaasoo kasoo farcama dhaawac kaasoo ka yimaada asalkii horeba dhaawac ayaa loo yaqaanaa acute inflammation. Chronic inflammation waa nooca labaad. Chronic inflammation waxa uu noqon doonaa isagana caabuq muddo qaatay in uu soo ifbaxo kaasoo ka imaan kara in acute inflammationkii uu isu gudbo ama uu isu bedelo chronic kaasoo ka imaan kara marka dhaawacii aynu hadda sheegnay ama infection ayaa keeni karo. Jaantuskani waxa uu inoo kala cadeyn doonaa acute inflammation iyo chronic inflammation qaababkay u dhacaan marka nudihii uu gaaro infection ama uu gaaro dhaawac waxaa dhici doonto in uu usoo gudbo nooca koowaad ee caabuqa kaasoo loo yaqaano acute inflammation waxa uu gudbi doonaa marka uu noqdo acute inflammation xaalad loo yaqaano bogsasho xaaladda bogsashada marka laga hadlayo laba ayay noqon doontaa in uu noqdo mid bogsoodo haddii ay bogsashadaasi ay dhacdo oo uu bogsoodo waxa uu noqon doonaa mid kusoo laabta qaabkii hore ee hemostasis inuu noqdo oo ay dhacdo tissue remodeling balse haddii ay dhacdo in uusan noqon mid bogsooda waxa uu u gudbi doonaa marka xaaladda labaad ama nooca labaad ee inflammationka loo yaqaano chronic inflammation maxaa sababa inuu dhaca caabuqa inuu dhaco ama causes of inflammation waxay noqon karaan laba midka koowaad ayaa ah exogenous in ay ka timaado sababtaasi dibadda sidee mechanical oo kale physical oo kale chemical and biological maxay kala yihiin mechanical marka laga hadlayo waxay noqon kartaa in waxyaaba trauma ama jug oo kale ay ku dhacdo physically waxyaabaha sida sharp objectska oo kale kiimikooyinka oo kale waxyaabaha kul oo kale ama in acid ay gaarto oo kale biological ayaa noqon karta biologicalka oo ah in bacteria in microorganisms ay ku soo duulaan kadibna ay soo galaan intaasi waxay noqon doonaan exogenous endogenous waxay noqon kartaa cilad ka timaada marka cilada tani ama sababtan waxay ka imaan doontaa gudaha jirka waxaa ka mid ah circulatory disorders hypoxia oo ah low of oxygen supply endogenous protease release enzyme-ka loo yaqaano protease in la soo daayo oo lagu soo daayo gudaha immune complex formation inay dhacdo immuunkii in uu isqabsado marka ay noqoto inaynu ka hadalno calaamadaha uu leeyahay caabuqa uu leeyahay waxaa loo kooxeeyaa ilaa 5 kooxood redness in uu noqdo midabkeeda mid casaan ah in ay yeelato kul labadaas calaamadood aynu sheegnay markay israacaan waxaa dhacaya in uu ziyaado qulqulkii dhiigga barar ayaa imaan doona bararkaasoo keeni doono in meeshaasi uu ku dhaco in uu ku soo aruuro dareerahaasoo noqon kara dheecaamo kadibna ugu dambeyn noqon doona in meeshii ay noqoto mid leh dheecaan waxay noqon doontaa astaanta afaraad xanuunkaasoo laga dareemi doono goobtaasi xanuunkaasi markuu yimaado goobtaasi waxa ay soo deen doontaa kiimikooyin kuwaasoo dareen gelin doona
neerfooyinka. qaybta ugu dambeysa oo dhici doonto loss of function oo ah in goobtaasi ay weyso shaqadeedii, in goobtaasi ay ku guuldaraysato ama ay bagabto in ay qabato howl. jaantuskani aynu ku bayaanino sidii ay u soo muuqan doonaan calaamadaha caabuqa. waxaynu arkaynaa marka jirka uu soo galo waxyaabo dhaawac keena sida midida oo kale iyo qodaxda oo kale, wax walba oo dhaawac keeni kara. waxa ay jirka ku samayn doonaan penetration. by the time ay dhacday inay jirka soo galaan, waxa dhacaya in goobtaasi ay ku soo ururaan unugyadii difaaca jirka. unugyadii difaaca jirka markay yimaadaan goobtaasi, waxaa dhacaya in meeshaasi uu ku dhaco acute inflammation. acute inflammation-kaasi waxa uu noqon doonaa marka in uu soo saaro calaamadihii loo yaqaanay cardinal signs. calaamadaas oo ka koobnaa 4 taani oo noqon doona in marka hore ay dhacdo redness, meeshii goobtii inay midab cas la soo baxdo, in ay dhacdo goobtaasi inay noqoto mid diiran, inay goobtaasi noqoto mid leh xanuun, ama in ay ugu dambeyn noqoto mid bararta. waxa ay ugu dambeyn noqon doontaa in ay gabto hawsheedii oo ah loss of function. hal mar aynu sharaxno mechanism of inflammation. inflammation horta waxa uu ku imaan karaa dhaawac keenay kul, jug gaartay nudaha, infection dilaacay, falgal allergic reaction, chemical injury dhaawac kiimikeed, ama weerar uu sababay difaaci jirka. markay dhacdo intaani xaalad, waxaa dhici doonto nudihii in uu maro 3daani process midkood. marka nudayaasha jirka ay saamayso caabuqaasi, waxaa dhici doono 3 xaaladood midkood: in unugyadii difaaca jirka ay ku soo ururaan goobtii, in xididkii ay ku dhacdo isbedel. qodobka 3aadna wuxuu noqon doonaa in dib loo dayactiro ama dib loo naqshadeeyo nudihii. 3daasi process markay dhammaato, outcome-ka imaan doona waxa uu noqon doonaa 2daani midkood: in marka xaaladda ay taagan tahay nooca koowaad acute inflammation, in dib uu u noqdo resolution uu ku dhaco uu bogsoodo inflammationkii, ama in inflammationkii uu sii darsado, xaaladiisa ay noqoto complication, kadibna uu gudbo noocii labaad ee ahaa inflammationka oo ahaa chronic inflammation, oo ahaa inflammationkii ama caabuqii raagayay inuu u gudbo ayuu noqon doonaa. waxaa halkaa inooga eg casharkeenii maanta. haddii ay jiraan su-aalo ama oraah aad inala wadaagayso, inoogu dhaaf qaybta hoose ee commentiga. casharka xiga intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. assalaamu calaykum.